cabdulaahi maxamed nuur waa xildhibaan wasiir hore qandaraas qaate iyo ganacsade hantidiisa ay kor u dhaafayso 50 milyan oo dollar 9 sano gudahood ayuu intaan oo dhan ku sameeyay cabdulaahi horaantii sanadihii 2000 ayuu cabdulaahi magaalada muqdisho soo galay baadiyaha gobolka shabeellada oo ku dhashay kuna barbaaray kama helin wax tacliin ah iskuul waxbarasho ayuu ka helay caasimadda 2009 ayuu gacan yare u noqday Sheekh Shariif oo madaxweyne loo doortay 2001 abaar dalka ku dhifatay oo galaafatay dad ka badan rubuc milyan ayuu cabdulaahi xiriiriye u noqday madaxtooyada iyo hay'adaha gargaarka Turkiga oo u yimid inay caawiyaan dadka abaarta ku xoolo beelay waa halkan meesha ay ka bilaabatay qisada hodantinimada cabdulaahi 4 ilaa 5 milyan oo dollar lacag gaaraysa ayuu cabdulaahi ka sameeyay raashin gargaar ah oo hay'adda Turkiga ee Tika iyo kuwa kale ay ugu talagaleen in Soomaalida lagu caawiyo balse uu iibsaday isagoo ka faa'iideysanaya awoodda madaxtooyada ee xilligaas buddig ayay u noqotay inuu cabdulaahi ku fikiro ganacsi hoteelka City Plaza ee Muqdisho ayuu ka bilaabay ganacsigiisa kadibna waxa uu sii ballaariyay dalaalnimadiisa isagoo oo qondo ku yeeshay dhammaan qadaraasyada Turkigu ay ku bixiyeen waxbarashada gargaarka iyo dawladda ciidamada Janaayo 2015 ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Sharmaake waxa uu magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda waxa uu dhigmay wasiir buuxa isagoo oo maleeshiyaad gaar u ah adeegsanaya ayuu dhammaan canshuurta soo gashay dawladda qasnadiisa si gaar ah ugu shubanayay tusaale ahaan $20 ayuu container kasta oo dekada Muqdisho ka soo degay ku lahaa sanadihii 2015 iyo 2016 qarashka labadaas sano soo galay isaga iyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh ayaa kala qaybsaday 2016 cabdulaahi waxa uu xildhibaannimadiisa ku bixiyay adduun lacageed oo kor u dhaafaya $5 milyan Mareykanka ah kadib markii uu ku hongoobay in Xasan Sheekh dib loo soo doorto si uu qandaraasadiisa musuqa ku salaysan u ilaashado waxa uu bilaabay inuu dadka ka niyad jabiyo dawladda isaga oo adeegsanaya xasaanada xildhibaannimada waxa uu ololeeyay inuu xubin ka noqdo guddiga maaliyadda kadibna waxa uu laalushay gudoomiyaha guddiga Ali Cabdi Cismaan oo gurigiisa kula nool si uu dawladda u dumiyo ayuu guddigan u isticmaalay cabdulaahi waxaana ay shuraako yihiin xildhibaan Adow Ali Gees oo haysta qandaraasyo musuq lagu bixiyay oo laga qaatay hay'adaha UN-ka isaga oo ka hoos shaqeeya dawladda Soomaaliya ayaa baaris ku haysta qandaraasyadan cawaaqibta uu wajahi karo baarista kadib waxa ka mid ah inuu xasaanadiisa waayo maxkamadna la soo taago haddaba isla xisaabtanka uu haatan wada cabdulaahi soo la mid maaha waraabe yiri waxaan xisaabinayaa xoolihii aan xalay neefka ka cunay xageese xildhibaan cabdulaahi ku sheegaya mushaaraadkii shaqaalaha iyo ciidamada ee isagoo ah wasaaradda maaliyadda jooga aan 7 bilood la bixin lagana waayay qasnada dawladda